culus dhibaatooyinka culus geysanaysa usoo dhiibaya ma ahan waxay lacag ee Soomaaliya iyo waxay ka aruun kuma keenin mustashriqiintaas marka oo gacan saarka la leh oo ayaga gadaal ka fadhiya waxa ugu siixun qolada mas'uuliyada la yiraahdo oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo Soomaaliya ka wada ama caalam islaami ka wada oo weliba midda hadda oo khaniisnimada faafinaysa dawladda inay taas ku baraarugsanaataa la rabaa waxa kale oo laga rabaa dawladdu in ay manhajka waxbarashada ay wax ka qabato sida fikirkan loola diray macna ma sameynayso cunug maskiina la soo khalday in maalin walba la dilo intii ninkii soo khaldaya oo ka dhaadhicinaya inay dadkaan gaalo iyo mushrikiin yihiin oo la leen karo oo xaramka lagu dili karo oo masaajidada lagu dili karo inta gadaal oo ninkaas u fadhiyo macna ma sameynayso fikirkan marka xagee buu ka yimid fikirkan wuxuu ka yimid tafliiska oranaya tawxiidka aqsaamu tawxiid maxaa faa'iidadiisu noqotay in la yiraahdo nimankan mushrikiinta ee muslimiinta sheeganaya ee tukanaya waxay ku aqeedo yihiin oo tawxiidka eesan uu la mid yahay tawxiidku uu fircoon haystay waayahay bal fircoon tawxiidkaas waa kuma wuxuu yiri ma calimtu lakum min ilaahin qayri fa uqilli ya haman ala din markuu madaxweyntiisa la hadla uu hanjabay oo lahaa ana ilaaha ahay ma jiro waxa ka sii horeysay 40 sano oo ka hor inuu yiri ana rabbukum al-a'la marka tawxiid rububiyana waa sheegtay tawxiid uluhiyana waa sheegtay bal tawxiidku oo fircoon rumaysnaa oo maanta ani oo muslim oo tukana ama ruuxa Soomaaliya muslimka ee muwaxidka oo ninkaas uu leeyahay marka waxa laga rabaa xukuumadda iyo madaxweynaha wasaafkir meeshaas waxa kala jeedaa in lagu baraarugo xagga wacyigelinta dadka Soomaaliyeed iyo dawladduba in ay wacyigelin badan sameeyso waayahay baraaruga bulshada marka loo eego deegaano badan ayaa haatan dadkoodii iska xoreeyeen cadawgii muddada dul fadhiyay seed dadka kaleete maanta ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab deegaanadooda ay ku dhuumaaleysanayaan baraaruga qayb uga noqon karaan isla markaasna ugu istaagi karaan sidii ay ciidamada ku gacan siin lahaayeen in ayagana markooda ay iska xoreeyaan al-shabaab الله يعزك وهرت السؤال فرق اكسبنسيف او 8 سؤال ku dhigata waana khibrada aan leedahay waana kaaga mahad celinaya runtii su'aashaasi waa horta waa muuqataa hadda dadka gobolka Hirshabeelle degan inay boqolkiiba 80 adiga hadda galbeed ku soo aroon sida la sheegaba marka in nimanka la iska xoreyn karo oo nimanka ciidamada deegaanka waliba ciidamada deegaanka markii deegaamada hore u bilaabaa jiro oo iska dhiciyay laakiin inta lagu fiirsaday haddana loo garba qabtay sida waxa ka dhacay baacad weyn sanadkii ee dawladda hore ee jirtay marka waxa loo baahan yahay dawladda inuu ku baraarugsanaato ee tahay waxa waa aniga rabbul xaqiiqa hadii hooshii hiiraan ka bilaabatay sida ay tahay oo u socon lahayd saacada raas kaambooni turaas caseer hal maariqa iyo hal mustashriq oo ma'suuniya looma arkay waa toos nabad loogu soo dabalina laakiin dada hortaagan oo haddaba waxa socda markii la arkay mashruuci al-habaab maariqinta ma'suuniyada ka kooban uu si gabaabsi yahay in dadka xataa qaab qabiil isku diro oo waxa nasiib xumo ah hadda runtii dawladda hadda kaalinta ay ka qaadatay arinta laascaanood aad uga mahad celinaya waana ku mahadsan yihiin laakiin waxa nasiib xumo ah nin nabadoon sheeganaya ama oday dhaqameed sheeganaya oo haddana u gurbaantumaya dagaal colaadeed iyo in isku halaagsamo oo sheekadii la soo celiyo sagaashameeyadii wixii ka horreeyay waa nasiib xumo inteeda la eg dawladduna waa aad uga mahad celinaysa sida uga feejigsan tahay marka dadka noocaas oo kale inta ay meesha joogaan iyo siyaasiyiintii waxaana arintaa ka dambeeya siyaasiyiintii fashilmay oo markii horeba al-shabaab awooddan basiiyayba markay arkeen al-shabaab meesha laga xaqayo haddana waxay tusay si ay dawladdu u fashiliyaan amniga oo aysan u hirgelin in ay haddana dadkii ay qabaa'il u abaabulaan arintaas marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne dawladda madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaarahana oo ka yahay xamse cabdi barre khayr allah siiyo waa niman dadaalahaya waana aad iyo aad ugu bogsanahay qaabka siyaasadooda iyo fishinkooda iyo qaabka wax u maareynayaan